Bismillaahi Raxmaani Raxiim asxaabteyda qaaliga soo dhawaada insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo mowduuc muhiim ah cashir aad muhiim u ah inaan ka hadlo ayaan rabaa cashirkaasoo ah faa'iidooyinka caafimaad ee ku duugan basasha haddaba basash waynu naqaanaa waynu aragnaa waynu cunaa dad badanna way neceb yihiin laakiin weli ma isweydiisay maxay faa'iido leedahay maxay dhibaato leedahay basasha ma tahay midaan u malaynayno faa'iidadeeda mise waxay u fududahay sidaan u fududeysanayno amase waa mid ka duwan cilmi baarisyo badan ayaa lagu soo dhigay in cunista basasha ay leedahay faa'iido caafimaad sidoo kale basasha waxay leedahay urkaas waxaa lagu iloobi doonaa faa'iidooyinkeeda markaad aragto haddaba faa'iidada koowaad ee basasha waxaa waaye basasha waxay daawo u tahay xanuunada fudud ee wadnaha ku dhaco basasha waxay ka hortagtaa xanuunada fudud ee wadnaha cilmi baarisyo la sameeyeyna waxay iftiiminayaan in maadada la yiraahdo antioxidant carotene oo basasha laga helo ay qofka ka caawiso inuu iska saaro waxyaabaha sababa ee sahlan xanuunka wadnaha fudud waxyaalaha sababo faa'iidadeeda kale waxaa ka mid ah basasha waxay ka shaqaysiisaa habdhiska difaaca immunity maadada loo yaqaan cytochemicals ee laga helo basasha waxay jirka ku badisaa vitamin C kaasoo u wanaagsan habdhiska difaaca cudurrada ee jirka qofka basal dheelitiran cuna ee cuntadana ku darsado wuxuu si fiican isaga difaacaa xanuunada ay ka mid yihiin lafa garaaca iyo hergebka basasha faa'iidadeeda waxaa ka mid ah waxay daaweysaa hurdo la'aanta sidoo kale maadada loo yaqaan cytochemicals ee ku jirta basasha waxay qofka daawo ka tahay hurdo la'aanta qofka markuu cuno basasha ee uu cuntada ku darsado waxaa hubaala oo daraasado la sameeyay ay sheegeen inuu hurdi doono hurdo fiican habeenkaas wadamada reer galbeedka daawooyinka hurdo la'aanta waxaa ka mid ah qofka inuu cuno basasha waa daawo dabiici ah ee looga hortago hurdo la'aanta waxay gubtaa duxda ama baruurta qofka markuu cunto wuxuu u baahan yahay inta jirkiisa u baahan mooye inta kale inuu iska daadiyo ama iska saaro taasna waxaa qofka ka caawin karto inuu jimicsi sameeyo ama uu cuntada ku darsado basasha waa weight loss miisaanka ay ridaa waa arrin aad u wanaagsan faa'iidada basasha waxaa ka mid ah waxay baabi'isaa haaraha madmadowga wejiga iyo haaraha ayay baabi'isaa basasha waxaa ku badan vitamin C iyo maadooyinka la yiraahdo antiseptic waxayna arrintaasi qofka u sahashaa basasha inay ka baabi'iso madmadowga iyo haaraha wejiga waxaanu qofka basasha ayadoo aan la karinin wuu xoqi karaa intuu laba jeex ka kala dhigo kadibna maqaarka ayuu marinayaa ama meesha haaraha oga yaalo ayuu marinayaa ama wuxuu ku qasi karaa caano ciir ah ama caano la fadhiisiyey ama yogurt qof bas u yaqaano intuu basasha ayadoo aan la karinin weli ku tumo meel ama uu shiido ayuu ku dari doonaa caano fadhi ah ama yogurt qof bas u yaqaano wuxuuna marin doonaa wejigiisa ama meesha haarta ee uga taalay wuxuu ku haynayaa muddo dhan 10 ilaa 15 daqiiqo ah kadibna biyo qabow buu isaga dhaqayaa taasna waxaa lagu arkay tijaabooyin iyo daraasado la sameeyay waxaana lagu guuleystay in haaraha basashu ay jarto runtii waa faa'iidooyin aad u wanaagsan oo wax ku tar leh sidoo kale faa'iidada basasha waxaa ka mid ah waxay dheelitirtaa sonkorta ku jirta dhiigga qofka macaanka qaba waxaa inta badan lagula taliyaa inuu cuntada ku darsado basasha taasina waxay u saamaxdaa in dhiiggiisa xaddiga sokorta ku jirta dheelitirmo basasha waxay dheelitirtaa xaddiga sokorta ee dhiigga ku jirta dadka macaanka qabo ama dadka sonkorowga qabo basasha aad ay ugu fiican tahay inay cuntada ku darsadaan sababtoo ah waxay kontarooleysaa xaddiga sokor ayay kontarooleysaa sidoo kale faa'iidada basasha waxaa ka mid ah basasha waxay daawo u tahay calool xanuunka basasha waxaa ku jiro waxyaabo daawo ah xanuunka iyo garaaca bakteeriyada laysa taasina waxay keentaa inuu qofka cuno aanu caabuq caloosha ku yeelan halka ay sidoo kale ka caawiso in gastriga qofka aanu ku dhicin basasha waxay u fiican tahay calool xanuunka qofka basal badan cuno kuma dhaco infection badanaa sidoo kale basasha waxay u fiican tahay dadka gaaska qabo qofka hadduu basal badan cuno
kuma badhacaya gaas insha Allah. Marka faa'iidada basasha wax la koobi kara ma aha. Sidoo kale basasha timahana faa'iido ayay u leedahay. Waa first one wax ugu horeeyo ee timaha lagu dheereeyo ama timaha lagu qurxiyo waa basasha. Basasha faa'iidadeeda wax la koobi kara ma aha. Mid iyo labana ma aha. Aad ayay u badan tahay faa'iidadeeda. Ha lagu dadaalo insha Allah, ha laga faa'iideysto. Waana ku mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.